بسم الله. ma rabtaa in aad hesho gabadha aad tamaninayso nooca ay tahay, ama ma rabtaa inaad hesho wiilka aad rabto sida uu yahay, yacni wiil noocaas inaad qaabka adiga aad suuraysanayso ama qaabka adiga aad u dhigatay ama sida aad jeceshahay wiil ah inaad hesho. ma rabtaa ilaahay iidankii, ma rabtaa gabadhaad ku degto, ku nasato, ku qabowdo, marka ay kuu soo gashana ay noqoto gabadh barwaaqo ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala irsaaqada alla ku waasiciyo, ilmo barakaysanna kuu dhashay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ku siiyo. ma doonaysaa inaad noqoto in ilaahay subxaanahu wa tacaala kabto ay kuu soo gasho? maxaa samax ku yar maamahaan haddaan kaftamo, dumarku waa kabtiyo kala tuurto, inay gabadh kabto ah oo barakaysan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu risaaqo. ama ma jeceshahay wiil noocaasa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu risaaqo? haddii jawaabtaadu haa tahay, waana rajaynayaa insha allahu tacaala inay haa tahay, biidni illaahi tacaala 3 qodob baad qaadanaysaa. 3daa qodob ku dhaqan. qodobka koobaad, ka tag shukaansiga maalayacniga ah. wax kasta oo laqwi ah ilaahay wejiga uga tag subxaanahu wa tacaala. waqtiyada aad bixiso ku bixi dikriga alle iyo daacadiisa iyo diinta ka shaqaynteeda iyo fidinteeda iyo ilaahay raaligelintiisa. ilaahay waqtigaa ka gado. in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna, sida ilaahay uu tilmaamayey markuu mu'miniinta uu ammaanayay subxaanahu wa tacaala, iyo sida ay diinta iyo jihaadka iyo khayrka. markaa noqo qof ilaahay waqtigiisa subxaanahu wa tacaala kagana gata inuu diinta alla u shaqeeyo subxaanahu wa tacaala, walaa waqtiga maalacaamiga ka taga. qodobka labaad, waxaad aada u badisaa oo aada iyo aada u badisaa ducada. aada u badi, khaasatan ducadan xilligan uu nebi maxamed sala allahu alay wasalam sheegay. aada u badi. habeenka qofkii intuu seexdo indhaha kala qaada, kadibna akhriya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar allahuma akfir lii. ducada bacda alqur'aan waa muttafaq caleyh. maxaa yeelay qur-aanka marka laga soo gudbo waxa labaad ee ugu wanaagsan ee la akhriyo ee diintuna ay maaragtay saxaax ka dhigtay waa ducooyinka bukhaari iyo maaragtay dikriga bukhaari kusoo arooray. saa darteed insha allahu tacaala ducada akhriso. nabiga sal slam wuxuu yihi qofkii ducada akhriya, man tacara min alleyl, qofkii intuu soo kaco indhaha kala qaada ducada akhriya, kadibna ilaahay ku weydiistaa waxa uu rabo alla wuu ku siiyaa. qofkii soo kaco oo weysaystana ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada wuu ka aqbalaa. marka ku dadaal waqtigaas inaad ducadaas insha allahu tacaala adoo ducooyinka aada u fara badinaya, isku day mar walba inaad ilaahay aada u baridid, baryadaadu ha badato, khaasatan xilliga nabi sal slam uu sheegay adoo ma soo kicin indhaha kala qaad ducadaa ku akhri laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma akfir lii. ducada waa muttafaq caleyh, wax shakiina ma laha. waxaa waajiba inaad helayso adoo maadana soo istikfaarsanayo, khayr soo wada, dikri soo wada, miskiin allah habeenkii kacay ama miskiin allah habeenkii kacday gacmaha taagatay, rabbi kuma hoojinaayo insha allahu tacaala. qodobka saddexaad, maxaan dhahnay? shukaansiga maalayacniga laqwiga ilaahay dartii uga tag, waqtigaasna ilaahay ka gado. qodobka labaad, ducada badi, khaasatan ducadaas aada u badi insha allahu tacaala. qodobka saddexaad ugu dambeeya, saliga nebiga sal slam badso. maalintii 2,000 oo jeer, 3,000 oo jeer, 4,000 oo jeer, 5,000 oo jeer, inta aada awoodo samee. 3daa qodob haddaad samayso, qofka aada rabto ayaa kuu imaan doona insha allahu tacaala biidni illaahi tacaala. ducada waxaa la socdo qofku markuu ducada badsanayo inaad aada istikfaarta u badsatid. istikfaar fara badan, duca fara badan, istikfaar fara badan, duca fara badan. maxaa yeelay ducada aad ilaahay baraysaa wada istikfaar. marka istikfaar fara badan iyo duco la imo biidni illahi tacaala. waqtigaana uga tag ilaahay dartii subxaana wa tacaala. xilligaana soo kac, saliga nebigana badi insha allahu tacaala. mar walba waxaad noqonaysaa qof ilaahay u dhow. waxaad heli doontaa qofka aad rabto nooca uu yahay. sii gudbi insha allahu tacala, walaalha kalena sii gaarsiy meel kastaa joogtaan. guulaysta. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.